Nadiira iyo Nucmaan waxay ahaayeen mid ka mid ah fiidiyoyaashii ugu qiimaha badnaa ee aan ka soo gudbinay isla duurka ama dhacdooyinka ka dhacay isla duurka. Wuxuu ahaa mid ka duwan dagaalada ka dhacay isla duurka ama aan ka soo gudbinaynay. Wuxuu ahaa mid dareen ah, mid qalbiyan ah, mid ay ku midoobeen laba aan ugu magac darnay Nadiira iyo Nucmaan. Dad badanna ay ka falceliyeen dhacdadana ay u sacbatumeen ama ay la reeqeen soo gudbinteeda oo waqti badan la sugayay taxanahaas. Waxaan dib u milicsanaynaa Nadiira iyo Nucmaan iyo jacaylkii taabagalay iyo dagaaladii dhexdooda maray. Kulli dad badani way xasuusanayaan Nadiira iyo Nucmaan waxay isla soo mareen jaranjarooyin dheer si ay u soo gaadhaan heerka ay hadda ay joogaan. Isla sidoo kale dad badan kulli way xasuusanayaan dhacdooyinka waxaa ku jiray Nucmaan marka uu kormeerka soo sameynayo ama uu dhulka soo indhaynayo inuu soo yaro baaqbaaqi jiray ama uu soo kala xadxaadhi jiray beero kale oo hadda ugub ahaa, kuwaas oo ay qaadan kari weyday isla Nadiira. Dagaalna ay ka bilowday kadibna ay ku kala tegeen dhacdadaas. Nadiirana qaadan kari weyday isla ficilada uu sameynayo isla Nucmaan. Dagaal ka bilaabmay kadib raaligelin iyo in aarar kale ay ku soo duuleen oo Nadiira la wareegay. Sidoo kale cagabaruuradii ka beermay isla Nadiira oo qaarkood cadhada darteed ku kala lumay, qaarkoodna la laayay. Xaalka kadibna la dejiyay oo Nadiira ay ogolaatay soo biiridda mid kale oo dhigeeda ah, halkaas oo dad badani ay biyo diideen oo ay dhaheen qisada inta maad ka reebtid intaas ay ku soo biirayso. Nadiira mid kale ay ku soo biirayso ama ay ogolaanayso wixii ay ka dagaalantay ama ay diiday ama ay qaadan weyday ama ay u dayaceen isla cagabaruuradoodii inay ogolaato inta maad ka reebtid. Kasoo daawo qisadan iyo dhacdadan isla playlistigoodii. Tani waxay ahayd maca salaamadintii ugu adkeyd Shaka Empire. Shaka wuxuu ahaa mid qaaliya. Shaka walaalnimo wuxuu ahaa dhabar ama geesi walaal ah oo lagu tiirsanaa oo marnaba laga maarmi karayn. Shaka aabanimo wuxuu ahaa sidoo kale aabbo adkaysi badan oo marnaba sidoo kale ku tiirsanaashadiisa aan laga maarmi karayn. Shaka boqor ahaan wuxuu ahaa boqor u taliya isla raxan ka kooban 10 gool ah iyo cagabaruuradoodii. Shaka wehel ahaan wuxuu ahaa garab aanan leecin ama mid bir ah oo aanan jebin. Shaka maxaad ka taqaan?